Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kusoo dhawaada filim aad u xiiso badan oo aan idinla jeclaystay maanta. Haddaba haddaad horay noola joogtay like saar muuqaalka, haddaad nagu cusub tahayna subscribe dheh oo gambaleelka furo. Filimkeenu wuxuu bilaabanayaa nin la yiraahdo Milo Stanfield oo la dhibaataysan xanuunka dhimirka ee loo yaqaano autism-ka. Waxaa la arkay iyadoo uu taagan yahay waddo ku taal New Jersey isagoo isha ku haya haweeney ku jirta dukaan ubaxa lagu iibiyo oo u dhow. Isla markaas wuxuu samaynayaa xisaabaad aad u adag oo la xiriira waqtiga ay dhacayaan waxyaabaha hareerihiisa ka socda. Milo wuxuu dareemayaa soo dhawaanshaha bas rakaab ah, god wadada ku yaal, farshaxamiiste wadada jooga iyo qof baaskiil si xawaare leh ku wada. Kadib markii uu indhayntaas sameeyey, wuxuu gooyey wadada wuxuuna qalin si xeeladaysan u dul saaray sanduuqa boostada oo ku dhow godka wadada. Wax yar kadib, silsiladii dhacdooyinka uu qorsheeyey ayaa bilaabatay. Taxi ayaa ku dhacay godkii, biyihii ayuu ku sayriyey qalinkii, taas oo keentay inuu dhulka ku dhaco. Tani waxay soo jiidatay dareenkii farshaxamiistaha, kaasoo u soo dhaqaaqay inuu qalinka soo qaado. Isla daqiiqadaas, ninkii baaskiilka waday ayaa ku dhacay farshaxamiistihii, taas oo keentay inuu ku dhaco sanduuqii boostada, kadibna uu ku kor dhaco meel khudaarta lagu iibiyo. Wadadii waxaa ka dhashay fawdo iyo qas, taasoo ka mashquulisay qof kasta oo goobta joogay oo uu ku jiro darawalkii basku. Natiijadii, darawalku ma uusan dareemin in leydhka taraafikada uu isu beddelay casaan, wuxuuna ku dhacay isla haweenaydii wadada goynaysay, isagoo halkaas ku dilay. Milo ayaa goobta isaga lugeeyey kadib markii uu xaqiijiyey in qorshihiisii u fulay sidii uu rabay. Muuqaalku wuxuu u wareegayaa sarkaal sare oo ka tirsan FBI-ga oo la yiraahdo Olivia Dunham. Waxay u shaqaysaa qaybta loogu magac daray Fringe ee ka tirsan amniga gudaha, taasoo ku takhasustay dhacdooyinka aan caadiga ahayn. Olivia waxay u muuqataa inay shaqada ku soo laabatay kadib muddo dheer oo ay u maqnayd dhaawac madaxa ka soo gaaray awgeed. Isla markii ay gashay xarunta dhexe, waxaa salaamay saaxiibkeed Charlie oo ah kormeeraha kooxda. Dhanka kale, madaxa hay'adda oo la yiraahdo Wilternate Bishop ayaa la hadlaya mid ka mid ah caawiyayaasha shaybaarka oo la yiraahdo Philip Broyles, iyagoo ka wada hadlaya soo laabashada Olivia. Philip wuxuu leeyahay inay tahay qof u eg oo keliya oo la yiraahdo Focus Livia, wuxuuna muujiyey walaac ku saabsan in kooxda lagu dhex dari karo qof iska dhigaya qof kale. Halkan waxaa lagu shaaca ka qaaday in Olivia xafiiska joogta aysan ahayn tii saxda ahayd, dhab ahaantii waa qof iska dhigaya oo loo keenay inuu buuxiyo booskii tii hore. Wilternate ayaa markaas shaaca ka qaaday sababta uu Focus Livia ugu hayo caalamkan, uuna ugu dhex beeray xusuustii Olivia dii saxda ahayd. Wuxuu ku sheegay in Focus Livia ay tahay qofka keliya ee u kala gooshi kara caalamyo kala duwan iyadoon wax dhibaato ah soo gaarayn. Wilternate wuxuu rabaa inuu ogaado sida ay taasi u dhici karto. Si taas loo gaaro, wuxuu sheegay inay tahay in laga dhaadhiciyo inay halkan iska leedahay. Philip ayaa weydiiyey waxa dhici kara haddii aqoonsigeeda cusub uu fashilmo, markaas ayuu madaxii ugu jawaabay inaysan muhiim sii ahaan doonin kadib markaas. Kadib, Charlie ayaa kooxda siiyey warbixin ku saabsan shil baska oo u muuqda mid aan ku talagal ahayn, kaasoo uu sheegay inuu dhacay 2 jeer toddobaadkan, dhibanuhuna uu dhintay mar kasta. Wuxuu markaas weydiistay shaqaalihiisa inay taxadaraan ka hor intaysan aadin goobta baaritaanka. Muddo yar kadib, kooxdii FBI-ga ayaa soo gaaray goobta shilka, waxayna u kala qaybsameen inay raadiyaan wax kasta oo horseedi kara xog. Baaritaanka waxaa horkacaya sarkaal kale oo FBI ah oo la yiraahdo Lincoln Lee, kaasoo wejigiisa ay ka muuqdaan nabarro gubasho ah. Charlie ayaa baartay meydkii, waxayna u adeegsatay faraha si ay u hesho faahfaahin dheeri ah. Waxay aakhirkii ogaatay in haweeneyda dhimatay magaceedu yahay Julianne Foster. Dhanka kale, Olivia waxay su'aalo weydiinaysaa darawalkii baska, kaasoo ka naxsan shilka maadaama uusan xitaa weligiis ku dhicin shimbiro ama xayawaan ilaa hadda. Isla mar ahaantaana, sarkaalka Lee wuxuu baarayaa calaamadaha deegaanka laakiin waxba ma helin. Si kastaba ha ahaatee, wuxuu goobta ka helay isla qalinkii. Kadib markii ay wax weydiisay dadkii goobjoogayaasha ahaa, Olivia waxay u dhawaatay sarkaalka Lee, waxayna u sheegtay in farshaxamiistihii goobta joogay uu u foorarsaday inuu qalinka soo qaado, xilligaasna uu ku dhacay ninkii baaskiilka waday, kadibna uu ku dhacay miiskii khudaarta. Markuu taas maqlay, sarkaalka Lee wuxuu tuhmay in qalinka uu yahay curyaha ugu weyn ee abuuray silsiladda dhacdooyinka, taasoo aakhirkii keentay dhimashada dhibanaha. Maalintii xigtay ee xarunta dhexe ee Fringe, sarkaalka Lee iyo Charlie waxay isku dayayaan inay helaan xiriir ka dhexeeya shilalka basaska ee dhacay 2 maalmood. Sarkaalka Lee wuxuu ku arkay isla qalinkaas sawirkii shilkii hore, taasoo ka dhigtay inuu aad u rumaysto in qof uu qorsheeyey silsiladda dhacdooyinkaas. Kadib, waxay u tageen inay la hadlaan haweeney xisaabyahan ah oo ka tirsan hay'adda Fringe oo la yiraahdo Astrid, waxayna u sheegeen dhacdooyinka. Si kastaba ha ahaatee, waxay sheegtay inuusan jirin bini'aadam fulin kara silsilad dhacdooyin caynkaas ah oo haddana 2 jeer ku guulaysan kara. Iyadoo dooda u dhexayso, ayaa shil kale oo baska ah uu dhacay, taasoo Astrid kaga tagtay naxdin. Saraakiishii FBI-ga ayaa durbadiiba u yaacay goobta, waxayna ogaadeen in dhibanayaashu ay nool yihiin markan. Markii ay su'aalo weydiiyeen dadkii hareeraha joogay, waxay ogaadeen in ay si lama filaan ah wadada u gooyey, taasoo keentay in basku lumiyo xakamaynta. Isla markaas, Olivia waxay aragtay qalin kale oo la mid ah kii hore oo dhulka ku soo rogmada, taasoo ka dhigtay inay ogaato in silsiladii dhacdooyinka aysan weli dhammaan. Waxay fiirisay hareeraha, waxayna aragtay Milo oo shaki leh oo hoos ka soo eegaya buundo dusha sare marta. Daqiiqada kadib, nin xiran sameecadaha dhegaha ayaa u soo dhaqaaqay inuu wadada gooyo si uu u dhaco ambalaas soo socota. Markii ay xaqiijisay tuhunkeeda, Olivia waxay u digtay kooxdeeda, waxayna u carartay dhankii Milo. Markuu taas arkay, kii dambe ayaa durbadiiba xisaabiyey silsilad kale oo dhacdooyin ah, wuxuuna buundada ka soo tuuray baaskiil. Tani waxay ku khasabtay baskii inuu beddelo jidkiisa, uuna si toos ah u maro buundada hoosteeda. Olivia ayaa qori ku qabatay, iyadoo ugu hanjabtay inuu isdhiibo, laakiin Milo wuxuu ka booday buundada, wuxuuna ku dhacay dusha sare ee baska, isagoo halkaas ka baxsaday. Dhacdadan kadib, Milo wuxuu ku laabtay guriga isagoo helay walaashii Madeline oo u welwelsan isaga.
waxay u sheegtay inay wicitaano badan ka heshay isbitaalka laakiin wuu iska indha tiray waxay isku dayday inay ku qanciso inuu isdiibo iyadoo sheegtay inuu aad u fogaaday si kastaba ha ahaatee Maylo wuxuu dareemay ficiladeeda wuxuuna dhammaystiray weedhaheedii isagoo weli hadlaya taasoo aamusisay walaashii wax yar kadib Madeline waxay tustay toy yar oo faras balaastiig ah kaas oo ahaa xusuusin ka timid hooyadood tani waxay ka dhigtay inuu dareemo raaxo darro wuxuuna isaga lugeeyay meeshii isagoo leh tani hadda muhiim maahan dhanka kale sarkaalka Lee ayaa loo qaaday isbitaalka si loo baaro maqaarkiisa ka hor inta uusan gelin qolka lagu daweeyo gubashada wuxuu ka codsaday Olivia inay xoogga saarto sidii loo heli lahaa waxyaabaha ay wadaagaan saddexda dhibanaha markay raacday tilmaantiisa Olivia waxay ku laabatay xaruntii dhexe waxayna bilowday inay la hadasho goobjoogayaashii shilalka baaritaan muddo socday kadib waxay ogaatay xiriir ka dhexeeya saddexda dhibanaha iyo xarun caafimaad dhammaan saddexdoodaba si toos ah ama si dadban ayay xiriir ula lahaayeen xaruntan waxay xogteeda la wadaagtay Charlie labadooduna durbadiiba waxay aadeen isla xaruntaas caafimaad markii ay halkaas gaareen Olivia waxay ogaatay in qaar ka mid ah bukaanadu ay isticmaalayaan isku midka ah qalinka boostada maadaama aysan awoodin inay isticmaalaan qalabka dijitaalka ah kadib waxay la kulmeen dhakhtar Levine oo ah madaxa dhakhaatiirta kaasoo aqoonsaday dhammaan saddexdii dhibanaha ee shilalka basaska kadib markii uu siiyey faahfaahino ku saabsan dhibanayaasha dhakhtar Levine wuxuu sharaxay inay caawinayeen bukaanada maskaxda ka naafoobay iyagoo isticmaalaya habab tijaabo ah si kor loogu qaado garaadkooda wuxuu sidoo kale tusay muuqaal laga soo duubay bukaanadooda halkaas oo Olivia ay ku aragtay Maylo markii ay wax ka weydiisay dhakhtar Levine wuxuu ugu jawaabay inuu ka mid ahaa bukaanadooda oo sidoo kale soo maray tijaabadii dawada ee garaadkiisa si aad ah kor ugu qaaday wuxuu sii raaciyay in Maylo laga sii daayay isbitaalka iyadoo ay kormeerayso walaashii uuna qorshuhu ahaa inuu dib ugu laabto si looga soo celiyo habka tijaabada ahaa laakiin hadda ma uu ka jawaabayo wicitaanadooda wuxuuna dilayaa qof kasta oo isku daya inuu xakameeyo kadib markii ay ogaadeen walaashii Maylo saraakiishii FBI-ga waxay go'aansadeen inay booqdaan iyadoo aysan ogeyn Maylo wuxuu isha ku hayaa Olivia isagoo dhowraya kasta oo ka mid ah dhaqdhaqaaqyadeeda saadaalinayana talaabadeeda xigta kadib Charlie iyo Olivia waxay gaareen gurigii Maylo halkaas oo ay ku soo dhaweysay Madeline waxay weydiiyeen halka uu ku dhex jiro Maylo laakiin waxay sheegtay inaysan ogeyn iyagoo dareemaya inay wax qarinayso saraakiishii waxay u sheegeen dambiyada uu galay iyo sida ay khatar u tahay in loo ogolaado inuu iska wareego intii uu Charlie baarayay qolkii Maylo Olivia waxay la wadaagtay walaasheedii dhimatay iyadoo shaaca ka qaaday sidii ay isugu daryeeli jireen tani waxay kalsooni siisay Madeline si ay ula wadaagto faahfaahin dheeri ah oo ku saabsan walaalkeed waxay sharaxday in Maylo uu awoodo inuu saadaaliyo natiijada dhacdooyin badan ilaa faahfaahinta ugu yar iyo inay jebin karto feejignaanta Maylo kaliya markay tusto faraska toyka ah Olivia waxay aakhirkii ku guulaysatay inay ka dhaadhiciso inay sheegto wax kasta oo ay ogtahay iyadoo carabka ku adkaysay inay ka walaacsan yihiin dadka rayidka ah iyo sidoo kale badbaadada Maylo Madeline ayaa markaas u dhiibtay warqad ay ku qoran tahay halka uu ku yaal hoteelka uu Maylo hadda degan yahay kadib markaas Olivia iyo Charlie waxay Astrid kala hadleen qorshaha lagu qaban karo Maylo si kastaba ha ahaatee waxay durbadiiba ogaadeen in qorshe kasta uu noqon doono mid aan micno lahayn sababtoo ah wuxuu saadaalin karaa dhaqdhaqaaq kasta oo ay sameeyaan natiijadii waxay doorteen inay si toos ah u aadaan hoteelka iyagoon wadin ciidamo gurmad ah dhanka kale Maylo waxaa lagu arkay qolkiisa hoteelka isagoo ka eegaya daaqadda uuna qiyaasayo muuqaalada dhigi doona dhowrka daqiiqo ee soo socda awoodiisa ayuu ku saadaalinayaa in Olivia iyo Charlie ay dhowaan imaan doonaan ayna eryan doonaan wuxuu kaloo xisaabiyey inuu dili karo Olivia isagoo ku soo dabinaya aag calaamadaysan oo dhismo ah halkaas oo hawadu ay aad u yar tahay uuna ku hoos burburinayo raba quruurad ah oo sibteyntii lagu sameeyey sidii uu saadaaliyey labadii sarkaal ee FBI ayaa soo gaaray hoteelkii waxayna heleen Maylo oo wadada ku sugaya kadib wuxuu u cararay dhankii dhismaha intii ay saraakiishu eryanayeen Olivia oo aan ka warqabin calaamadaha digniinta ee aaga hawadu ku yar tahay ayay dhex orday halkii ay ka istaagi lahayd si ay u xirato qalabka neefsashada tani dhab ahaantii waxay ka dhigtay xisaabintii Maylo mid khaldan waxaa intaa dheer waxay sidoo kale ka leexatay raba sibteyntii ah oo Maylo u qaatay inay burburin doonto ninkii sharka lahaa ayaa ka naxay markuu arkay xisaabtiisii oo khaldantay aakhirkana gacanta ayay ku dhigtay waqtigan xaadirka ah Olivia waxay ku dhawaatay inay neeftu ku dhimato heerka oksijiinta oo hooseeya awgeed laakiin Charlie ayaa soo gaaray waqtigii saxda ahaa wuxuuna ka caawiyey qalabka neefsashada kadib dhacdooyinkan Charlie ayaa weydiiyey Olivia sababta aysan u istaagin si ay u xirato qalabka neefsashada waxayna ugu jawaabtay inaysan aqoonsan calaamada digniinta kadib Olivia waxay keentay Madeline isbitaalka halkaas oo lagu arkay Maylo oo la hadlaya kombuyuutar weyn sida uu sheegay dhakhtarku dawadii kor u qaadaysay garaadka ayaa maskaxda Maylo ku jirtay muddo aad u dheer taas darteedna aysan u fulin karin habkii dib u soo celinta ahaa hadda maskaxdiisu waxay noqotay mid aad u horumarsan oo mashiinada kaliya ayaa fahmi kara fikradihiisa iyadoo ka xun warkaas Madeline waxay gashay qolka waxayna faraskii toyga ahaa ku dhaaftay walaalkeed hortiisa isla fiidkaas Olivia waxay joogtaa gurigeeda markay hesho aragti ku saabsan Peter oo ah saaxiibkeed ka yimid caalam kale wuxuu u sheegayaa inaysan iska lahayn caalamkan si uu u xoojiyo sheegashadiisa wuxuu xusuusiyey sida aqoon la'aanteeda ku aadan calaamadaha digniinta ee caalamkan ay u badbaadisay nolosheeda mar sii horeysay sida uu sheegay waxay dhiman lahayd haddii ay aqoonsan lahayd calaamadaha digniinta oo ay halkaas ku istaagi lahayd Peter wuxuu ku dhiirigelinayaa inay isku daydo inay soo xusuusato dhammaan xusuusteeda wuxuuna sidoo kale dhunkaday ka hor intaanu dhuuman oo uusan meesha ka bixin
halkaas ayuu inoogu dhammaanayaa filimkeenii xiisaha badnaa ee maanta. Waxaan rajaynayaa inaad ka hesheen sheekada ninkan garaadka badan. Like saar muuqaalka si aad noogu dhiirigeliso. Subscribe dheh haddaad nagu cusub tahay si aadan u seegin filimada dambe. Follow inoogu reeb qaybta hoose. Noona sheeg waxaad ka baratay sheekadan iyo filimka kale ee aad doonaysid inaan idiin soo turjumno. Waa walaalkiin oo idin leh nabad iyo caano ilaa filim kale oo xiiso leh iyo kulan dambe oo qurux badan. Nabadgelyo.